ما ogtahay in ChatGPT-ga aad isticmaasho aad gebi ahaanba si qaldan u isticmaasho waxaan doonayaa muuqaalka inaan idinla wadaago hal farsamo oo haddii aad ChatGPT-ga kusoo kordhiso ka dhigi doonto markaa mid 100 jeer ka wanaagsan qaabka hadda aad u isticmaasho waxaan doonayaa muuqaalka inta aan guda gelin inaan ka codsado muuqaalka inaan noo sii share gareyso soo dhawaada markaan isla eegno farsamada cajiibka ah mid ka mid ah caqabadaha ChatGPT uu leeyahay waxaa ka mid ah marka su'aal aad weydiiso in jawaabta su'aasha uu ku siinayo mar walba marka uu ka dhigo mid adiga uu doonayo inuu kugu qanciyo waxaa laga yaabaa mararka qaar isagoo ku siin kara jawaabtan ka fiican in marka uu is dhaho bal qofkan userka ah sida uu rabo wax ugu sheeg waxaa laga yaabaa mararka qaar fikrado waalwaalan inaad weydiiso kadibna marka inuu kugu raaco uu ku dhaho waaw waa fikrad wanaagsan saas waa samayn kartaa haddaba waxaa la doonayaa ChatGPT-ga marka aad jawaabo ka helayso jawaabaha uu ku siinayo inay noqdaan jawaabo markaa u dhow xaqiiqada ama reality-ga sababtoo mararka qaar waxaa dhici karta in waxyaabo aanan fiicnayn ama waxyaabo aan sida aad u rita adiga aad u arkaysid aanan ahayn inuu marka adiga aragtidaada kula raaco oo markaa dhibaato ay ku keento for example iminka tusaale yar baan tusinayaa hadda ChatGPT-gana aan isticmaalayo weli farsamada idin sheegaya kumaan soo kordhinin waxaan doonayaa marka hore intaan farsamada aanan ku darin isaga bal marka hore inaan isla eegno before iyo after siduu noqon doono so hadda hal su'aal baan weydiinayaa jawaabta hadda uu isiinayo iyo hadhow markaa farsamada idin sheegaya kusoo kordhiy jawaabtu isiin doono waxaan sameyn doonaa markaa laba tab baan ka kala furaya waa eegi doonaa markaa farqiga u dhaxeeya haddeertan su'aasha ChatGPT aan weydiiyey waatana waxaan ku dhahay waxaan doonayaa inaan magaalada muqdisho ka bilaabo shirkad ka shaqeysa telecommunication-ka sababtoo ah waxaan arkaan ku dhahay demand inuu ka jiro magaalada muqdisho shirkad telecommunication loo baahan yahay marka waxaan doonayaa shirkadda inaan sameeyo iga caawiyo markaa qorshaha shirkadda aan ku dejin karo so raayna su'aashan hadaa weydiiyo ChatGPT waxay u badan tahay inuu la qaadan doono fikraddan oo dhihi doono waa fikrad wanaagsan waa inaad ku dhaqaaqdaa laakiin ma is weydiin doono already ChatGPT ana xogteeda wuu hayaa wuu yaqaan Cabdiraxmaan la yiraahdo memory-ga ugu jira wuu ogyahay in shirkad inta la eg aanan haysan qarashan ku bilaabo waxa laga yaabaa malaayiin dollar baa ku kacaysa sidoo kale magaalada muqdisho realistic ma ay shirkad telecommunication ka shaqeysada laga bilaabo sababtoo shirkado badan baa ku jira suuqa ciriiri weey laakiin hadda su'aashan hadaa weydiiyo waxay u badan tahay ChatGPT marka inuu dhaho absolutely waa fikrad wanaagsan waxaas baa u baahan tahay inaad samaysid laakiin runta ma ii sheegayo marka waxa aan doonayaa marka ChatGPT imika aan ka baro waxa weeye sidee ba ChatGPT-gaaga uga dhigi kartaa mid runta ku sheega oo marka aanan wax beenbeena kugu mashquulin oo su'aasha aad weydiiso sida ugu fiican ee marka realistic ah oo adigu marka aad xaqiiqda ku gaari karto marka uu kugu jawaabo soo hadda tan su'aasha waan weydiinayna soo hadda arkaysaan ChatGPT wuxuu dhahay that is a great idea waa fikrad wanaagsan in shirkad telecommunication ka bilaabo magaalada muqdisho kadib wuxuu bilaabi doonaa marka step by step inuu market research sameeyo xagaa ka dhacay sheego laakiin realistic ma aha in haddeertan shirkad noocaas aan bilaabo so just example weytan waxyaabo badan baa jiro inta weydiis ChatGPT laga yaabaa marka in uunan kula qaadan aragtida sida saxda ee tahay laakiin marka inuu kugu dhiirigeliyo ku dhaho waa sameyn kartaa waxaas laakiin fikrad ganacsi u sheegaysa for example waxa laga yaabaa marka inuu ku dhaho ku dhaqaaq waxa sameey so maybe marka qaar inay waxyaabaha qaar ay fiican yihiin waa laga yaabaa laakiin ani ahaan ChatGPT ma jeceli in waxa aan weydiiyo uu aniga inuu igu qanciyo isku dayo oo marka uu sugar coating igu sameeyo marka wixii uu macaaneeyo marka farsamada ay sheegay iminka waxaa jirta prompt yar oo aan soo diyaarsaday soo description ka heli doontaan promptiga ama comment-iga koowaad soo promptiga waxa weeye in ChatGPT aad u sheegtid marka uu ku jawaabayo inaad tiraahid jawaabta aad siin doonto markasta xaqiiqda marka ha ku saleysnaato just ha isku dayin in aniga qanciso ama aad dhiirigeliso jawaabaha ay siinaysid mar walba marka ha noqdaan jawaabo saas soo kaliya farsamada kaliya ma u isticmaali kartid inaad ChatGPT amarkaas siisid so ChatGPT waxa way sababta aan tusanayo waxa farsamadan waxaa jirta qayb la dhaho personalization so personalization wuxuu ka caawinayaa in ChatGPT adiga shakhsiyadaada iyo sida wax u ratid aad ka dhigan kartid so just example weytan aan soo qaatay waana fiicanta hadii aad ku xirato in marka mar walba uu ku jawaabayo marka si xaqiiqda ku dheehanta inuu kugu jawaabo marka si aad ChatGPT ga customization ugu samaysid waxa u baahan tahay in personalization kiisa ama dabeecadiisa marka inaad sida aad aragtaa ka dhigato so si aad u bedesho ama personalization ChatGPT aad u update garayso waxyaabo badan baad samayn kartaa laakiin aniga hal meel baan doonayaa maanta inaan tuso so marka si aad u bedesho qaybtan hoose meesha magacaaga ku qoran taabanaysa kadibna markaas personalization meesha ku qoran taabanaysa so xagan waxyaabo badan baa bedeli kartaa waxa bedeli kartaa marka style-ku wax kugu sheegayo waxa bedeli kartaa marka markuu kula hadlayo inuu si degan kula hadlo waxaas dhan waa bedeli kartaa laakiin anigu hal meel baan u socdaa meesha u socdaa meesha ku qoran custom instructions so xaga waxa ku qoran kartaa amaro adigu aad siisay ChatGPT oo custom ah
oo markaa waxaad dhigi kartaa markaa ii jawaabaysid waxaas iyo waxaas samee markaa jawaabta dhamaysid waxaas samee marka wayna fiican tahay inaad ku xirato sababtoo waxyaabo badan baa u isticmaali kartaa waxaad dhigi kartaa mar walba su-aal aan ku weydiiyo documenti iga sameeyo waxaad dhigi kartaa markaan su-aal ku weydiiyo marka hore isalaan so adiga kugu xirantahay so anything baa ka dhigan kartaa laakiin anu hadda tan aan doonayna intus waxaa weeye waxaan wataa haddeertaan promptigaan wataa so promptigan wuxuu ku dhahayaa be direct mar walba si toos ah ila hadal realistic oo marka xaqiiq ah honest with me si daacadnimo ay ku jirto markaa ama daacad ahaan ila hadal marka don't sugarcoat anything waxba ii macaaneyn so adigu promptiga wuu dheeryahay adigu waa koobiyeysan kartaa just copy dheh kadibna xaggaan keen marka intaa markaa hadda u sheega safe baan dhahayaa waxaan doonayaa markaa deetan afterkii markaa inaan idin tuso isla promptigii markii hore aan weydiiyey soo kan aan iska xirno isla promptigii markii hore aan weydiino kan ah baan koobiyeysanayaa kadibna markaa ChatGPT cusub baan furayaa oo tab cusub aan ka galayaa kabacdina markaa waxaan isbarbar dhigaynaa jawaabta hadda uu ina siiyey iyo markaa jawaabta uuna siin doono markan kale so hadeertan jawaabta wixii uu ku bilaabay waxay ahayd I will be real with you inaad shirkad telecommunication bilowdo waxaa weeye extremely capital intensive marka haddatan waa arkaysaa su-aasha hadda jawaabta siduu noo siinayo iyo markan kale isku mid maaha xitaa isagoo ku siinaya xataa qorshaha laakiin marka hore digniintuu ku horeysiinaya marka personalizationka ChatGPT waxyaaba badan baa uga faa'iideysan kartaa oo wuxuu kaa caawinayaa ChatGPT in sida adigu aarato mar walba kuugu jawaabo marka anything baa ku qori karta xitaa af Soomaali waa ku siin kartaa instructionka haddii Englishka uu kugu adkaanayo waxyaaba qaar inay weydiisaaratid af Soomaali waa ku weydiin kartaa hadii kartaa mar kasta oo su'aal ku weydiiyo su'aasha luqad kasta aan kugu weydiiyo just af Soomaali inuu igu jawaab marka af Soomaali inuu kugu soo jawaabo ama instructionka kaliya af Soomaali ka dhigi kartaa laakiin jawaabaha uu ku siinayo marka sidoo doonaa ku siiyo marka personalizationka ChatGPT-ga cajiib weeye dadku intooda badan ma ka faa'iideystaan for example haddii arday aad taho kale waxaad bari kartaa ChatGPT markuu kuu jawaabayo in aad u sheegtay in arday tahay instruction adiga ku qaasa marka aad siiso kadib marka kuwaas uu raaco marka waxaan doonayaa in hadda halkan aan ka bilaabo series ku saabsan ChatGPT AI-ga waxaa soo wada qaybo badan oo ku saabsan ChatGPT ka mid tahay projects oo kale oo ayagana qayb muhiim ah haddaad samaysato wax badan ka faa'iideysan karto marka muuqaalkan intaas uu ku egahay haddii aan ugu cusubtaa platformskeena kusoo bir si marka aad uga faa'iideysato waxyaabaha AI ku saabsan oo inta badan aan ka hadalno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.